haweeney lagu magacaabo Saalax Suudiye ayaa madaxweyne ka noqotay dalka Itoobiya markii ugu horeysay taariikhda wadankaasi kadib markii xildhibaanada labada gole ee dalka Itoobiya ay kala fadhi yeesheen doorashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xildhibaanada labada gole ogolaadeen iscasilaadda madaxweynihii hore ee dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Mulatu Teshome tan iyo markii uu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn kadibna loo doortay jagadaasi Dr. Abiy Ahmed waxaa wadanka Itoobiya oo dhan laga dareemay isbeddello waaweyn oo inta badan ka hirgalay wadankaasi doorashadan haweeneyda ayaa waxa ay muujinaysaa ahmiyadda uu Dr. Abiy Ahmed siiyay dumarka wadankaasi arrintan ayaa timi kadib markii isla xildhibaanadu ay codsigii iscasilaadda ka aqbaleen madaxweynihii hore ee wadankaasi Itoobiya Mulatu Teshome dhowaan ayay ahayd markii uu sidoo kale isbeddel ku sameeyay kaabinetka ama golahaasi wasiirada oo dumar badan ay qayb ka yihiin madaxweynahan cusub ayaa noqonaya kii shanaad ee soo mara wadankaasi Itoobiya tan iyo 1991 markii xilka laga qaaday Mengistu Haile Mariam dhanka kale Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay sanadka 2019 ay markii ugu horeysay hawada sare ay u dirayso dayax-gacmeedkii ugu horeeyay ee ay yeelato wadankaasi Itoobiya warkan oo laga soo xigtay xafiiska isgaarsiinta ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya sameynta dayax-gacmeedka Itoobiya inay iska kaashadeen khubaro ka kala socday Itoobiya iyo wadanka Shiinaha madaxa maxadka tiknoolajiyadda hawada sare ee wadanka Itoobiya ninka lagu magacaabo Solomon Biley waxa uu sheegay sameynta dayax-gacmeedka wadanka Itoobiya ee ay hawada u diri lahayd inuu haatan gabagaba marayo waxaana dhammaystiray buu yiri fasaxii caalamiga ahaa ee looga baahnayo diiwaangelinta caymiska intaba waxaana si rasmi ah dayax-gacmeedka hawada sare aanu u diraynaa ayuu yiri sanadka 2019 dayax-gacmeedka oo hawada sare loogu dirayo dalkaasi Shiinaha waxa wadanka Itoobiya uu ku soo gaaraya 4 maalmood gudahood dayax-gacmeedkan oo miisaankiisu uu yahay 70 kiilo waxa loo adeegsan doonaa dabagalka iyo waliba ururinta xogaha la xiriira biyaha sidoo kale beeraha macdanta iyo horumarinta magaalooyinka waxaana dayax-gacmeedku awood u leeyahay inuu muddo tiraba 54 maalmood uu ku soo wareegayo adduunka oo dhan halka wadanka Itoobiya ay ku qaadan karto inuu ku soo wareego 4 maalmood maxadka sameynta dayax-gacmeedka hirgeliyay ee wadanka Itoobiya waxaa markii ugu horeysay la aasaasay sanadku markuu ahaa 2016 iyadoo ay maxadka u qorsheysan tahay ilaa 2025 inuu hawada sare u diro dayax-gacmeedyada uu dalka Itoobiya u baahan yahay oo dhan dawladda wadanka Itoobiya oo noqonaysa 7 wadan ee qaaradan Afrika ee yeesha dayax-gacmeed iyaga u gaara waxaa hore dayax-gacmeed hawada sare u diray wadamada Masar, Koonfur Afrika, Nigeria, Ghana iyo Angola iyo waliba sidoo kale Kenya Saciid Axmed Timreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee Star Burco